بسم الله waxaan rabaa inaan wax yar sharaxo leesinka ama furashanka baabuurta ee dalka Jarmalka qaybtiisa theory-ga ama su'aalaha ilaa hadda su'aalaha furashanka ama leesinka ee dalka Jarmalka waa 1146 bisha afraad 2021 labadeeda ayaa la rajaynayaa in isbedel lagu sameeyo isbedelkaas wuxuu noqon doona ma ogin waxayna u badan tahay in wax lagu soo daro la kordhiyo dadka imtixaanka marka sameeynaya waxaan dhiraa xilligaas inta ka horeysa ayaa idin fiican theory-ga imtixaankiisa soo martaanin si aydan isbedelkaas bisha afraad labadeeda dhacaya oosan idinku imaanin 1146 su'aalood inteena badan waxaanu ka aaminsanahay inay yihiin waxaan macno badni ku jirin oo kaliya inaad iska soo baastid ay muhiim tahay laakiin ma aha waxa muhiim ah inaan 1146 su'aalood soo akhrino oo fahamno si aynu u fahamno shuruucda baabuurka haddaynu indhaha kaliya ka soo qaybno oo inaan hal ka mid ah soo fahminin macnaheedii waxa looga dilnayahay hadhow waxaynu khatar ugu jirnaa nafteena iyo dadka wadada nala isticmaalaya inaan khatar gelino shilal baa geysan kartaa ganaxyo fara badan baa ku imanaya sidoo kale imtixaanka ayaad dhowr jeer suurtagal tahay inaad ku soo dhacdid sababtoo sharci kumaada soo baran indha adayg ayaad doonaysaa inaad ku qaadatid furanshanka waxaa dhici kartaa in theory-ga lagu soo rido in qaybta faarka lagu soo rido dhammaan qaybahaas inaad dhibaato kala kulantid sababtoo ah 1146 su'aalood inaad soo akhridid waxay ka anfacaysaa inaad imtixaankana si fiican ku soo baastid marka aad gaariga ka haysatidna inaad noqoto qof isku kalsoon oo shuruucda garanaya noloshaada dhan intaad gaari wadato qof shuruucda garanaya gaariga noloshaada baad saaraysaa reerkaaga baad saaraysaa naftaada dhan baad ku aaminaysaa ma aha inaad marka meel khatar oo aadan garanaynin aad iska gashid so maxaa gaariga saari kartaa kor rar intee leg baa saari kartaa dadka gaariga saaraysa qaab noocay noqonayaan caruurta qaabka oo saaraysa xagga dambe rar intee leg baa saari kartaa khatarta ka dhalan kartaa maxay tahay xagee dhigan kartaa xagee mari kartaa xagee laga xaq leeyahay xagee aad adigu xaq leedahay waa inaan shuruucda oo dhan fahamno soo su'aalahani maaha wax oo dadka lagu wareerinayo oo aan macna ku jirin maaha macnaha ku jira sharci weeyaan inaan barano dadka luqadda u dhashay ayaa waxay aadaaneen markay cajalada soo qaataan in badan oo kamid ah koorsyo dheeraada oo loogu sharaxo cajalada isagoo luqadda u dhashay oo garan karaya waxa meeshan laga wado inta badan intuu akhristo fahmi karaya inkastoo beerdu shbaraaqay tahay isan fahmi fududayn qof kastana oo fududayn haddana iyadoo laga yaabo inuu qofku fahmo oo akhrisan karayo boqolkiiba 90 uu fahmayo waxa meesha ku jira haddana waxay aadaaneen koorsyo dheeraada si loogu sii sharxo ay lacag dheeraada ku sii bixiyaan maaha faarishuulaha iskoola kale oo shaqadooda ay tahay inay cajalada sharxaanin haddaan netki ka raadisanin waad arkaysaaniin soo koorsyo ama iskoolo barayfada oo shaqadooda ay tahay inay cajaladan ku sharxaan maxay su'aashan sax u tahay maxay tan khalad u tahay maxaa la iiga xaq leeyahay maxaan u xaq leeyahay aydan inaga laakiin luqadeennii Soomaaliga kuma uusan turjuna hal kamida inaynu fahamno waynu ku adag yahay luqadan Jarmalkana dadka oo dhan uma wada sahlana oo way yara adag tahay laakiin waxa jira luqadaha Carabiga iyo Englishka oo lagu turjumay waxa fiican marka luqad uun inaynu ku soo diyaarino khasab ma ahna luqadda Jarmalka taqaanid si aad furanshan u qaadid khasab maaha dad badan aan luqadda aqoonaya baabuur wata dhibaatana ma laha luqadda wax kaaga xidhan ma laha waxa wax kaaga xidhan yihiin waa shuruucda gaariga inaad baratid luqadda rabtid ku soo baro marka English Carabi annaga waxaan ku diyaarinay Soomaali haddii aad rabtid koorsooyinkayga waad is email gareyn kartaa yani waad isdiiwaan gelin kartaa Soomaali ayaan ku sharaxnaa 30 maalmood gudahood ayaanu qofka gaariga ku barnaa qaybta theory-ga 30 maalmood gudahood mid keentinaysa mid aqoon yani isagoo su'aalihiin xiftinaya aqoonna ku baranaya sababtay tan sax u tahay sababtay tan khalad u tahay mar rabo inaan sheekadayda ku dheereeyo waxaan rabaa inaan u gudbo sharaxaadda dhowr su'aalood oo tusaale ah inaynu qaadano oo bal aynu eegno siday muhiim u yihiin fahamka su'aalahani tusaale ahaan su'aashan haddaynu hor taalla waxaa layna yidhi Welches Verhalten ist die beispielhaft für vorausschauendes Fahren habdhaqan noocee ayaad ku soconaysaa tusaale ahaan xaaladdan habdhaqan noocee ayaad tusaale ahaan xaaladdan ku soconaysaa so saddexdan tuma saxan buu ina leeyahay habdhaqan noocee saddex habdhaqan baa halka leen ku weydiinaya kuma saxan kuma ku soconaysaa ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen waxaan isku dayayaa inaan fahmo ku talagalka dadka kale ee wadada ila isticmaalaya ama baabuurta kale ee wadada ila isticmaalaysa xilli horeba waxaan isku dayayaa inaan fahmo ku talagalka dadka kale ee wadada ila isticmaalaya sida ugu suurtagalsan xilli horeba saas ayuu leeyahay su'aasha koowaad tan labaad ich beschränken die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug so ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug waxaan isku daya so waxaan dhimaya waxaan yareynayaa eegmada waxaan dhimayaa ama yareynayaa eegmada baabuurta iga horeysa
ama baabuurka iga horeeya inaan baabuurka iga horeeya isha la raaco ayaan iska yaraynayaa oo aad uma eegayo gaarigaas focuska ma saaray yani waxaan dhimayaa ama waxaan yaraynayaa eegmada gaariga iga horeeya saas ayuu leeyahay habdhaqankaasaan ku soconaya ich reagiere möglichste frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation waxaan ka falcelinayaa xilli horeba sida ugu suurtagalsan xaaladaha isbedel ee gaadiidka wadada ila isticmaalaya ama xaaladaha isbedel ee ku yimaada gaadiidka wadada ila isticmaalaya saddexdan su'aalood ama saddexdan habdhaqan kuma ku dhaqmaysa baa lagu yiri tusaale ahaan haddaan idhaahdo ich versuche die Absichten andere Verkehrsteilnehmer möglichste frühzeitig zu erkennen waa sax sababtoo ah waxaan isku dayayaa xilli horeba inaan fahmo ku talagalka gaadiidka kale ee wadada ila isticmaalaya xilli horeba sida ugu suurtagalsan boqolkiiba ma fahmi laakiin sida ugu suurtagalsan inaan fahmo aydan gaarigaas miyuu istaagayaa miyuu leexanayaa cilad baa ku timi inaan xaaladiisa fahmo ayaan xilli horeba isku dayayaa ku talagalkiisa wuxuu ku talagashay inaan fahmo taas sax bay noqon kartaa ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt von mir fahrende Fahrzeug tani sax ma noqon karto sababtoo ah ishaan dhimay soo eegmadan ka dhimaya gaariga iga horeeya aad uma fiirinayo oo eegmadiisaan iska yaraynaya haddii eegmadiisa yari sidoo ku dhacaysa gaarigan ama shil baaba dhacaya soo saas suurtagal maaha taas waan ka boodaynaa tan labaad wuxuu yidhi ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation waxaan isku dayaa xilli horeba in aan ka falceliyo sida ugu suurtagalsan isbedelka baabuurta wadada ila isticmaalaysa ama xaaladaha isbedel ee gaadiidka wadada ila isticmaalaya tan marka iyaduna waa suurtagal sababtoo ah inaan ka falceliyo waa muhiim baabuurta wadada ila isticmaalaysa xaaladaha isbedel ee dhabta ku yimaado labadaas ayaan rajaynaya inuu sax yahay for example haddeenu khalad calaamadino oo aynu khalad dooranno halkan hoose ayuu wuxuu inaka tusayaa waad khaladay haddeenu saxnana halkan hoose ayuu wuxuu inoo kusoo qorayaa waad saxday calaamaduna way kala duwan tahay markaynu khaladno casaan buu inoo saaraya markaynu saxnana guruun ayuu inoo saaraya ama cagaar so aan fiirino bismillah wuxuu yidhi waad saxday diese Frage wurde richtig beantwortet su'aalahaasi si saxa ayaad uga jawaabtay waan ka soconaynaa so wie sollten Sie sich verhalten wie sollten Sie sich verhalten sidee ayaad ula dhaqmaysaa soo sidee ayaad ula dhaqmaysaa xaaladdan aad ku timi carruur baa halkaa ku boodboodaya waddadana ku socotaa sidee ula dhaqmaysaa carruurtan sidee ku dhaafaysaa bremsen bereit bleiben bremsen bereit bleiben waxaan cagta u dhaweynayaa oo aan diyaar u noqonayaa bremsenka inaan gaariga joojiyo oo aan bremsenka aan lugta u dhaweeyo si haddii shil dhacan isla markiiba u joojiyo taas baan diyaar u noqonayaa oo lugtan waxaan ku qabanayaa ama cagtan waxaan ku qabanayaa bremsenka unvermindert Weitfahren horaan isaga sii soconaya anigoo aan xawaarahayga dhimin yani xawaarahaygii baan ku soconaya waxba ma dhimayo sidaydii baan ku soconaya isma bedelayo auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen xawaarahan soo dhimaya saddexdan su'aalo tuma saxa saddexdan habdhaqan kuma saxa waxaan leenahay bremsen bereit bleiben sax buu noqon karaa sababtoo ah inaan lugta u dhaweyno bremsenka si haddii carruurtu nagu soo ordaan u joojino gaariga waa sax tan sax ma noqon karto sababtoo ah unvermindert Weitfahren sax ma noqon karto haddaan xawaarahayga ku soo ordo for example halkan aan soo galay inuu 50 40 ku soconaya haddaan sidii ku sii socdo oo carruurtana ku dhacaya caqligal maaha marka carruurtuna igu soo ordi karaan tanna waxa la yiri xawaaraha ayaan dhimaya xawaaraha ayaan dhimaynaa si haddii ila gaariga ma xakamayn kareen haddaan xawaare ku soo galno meeshan hadhow carruurtii ku soo ordaanin iyadana waan saxnay wo müssen Sie besonders mit starke Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahren so xagee ayaad kaga xisaabtamaysaa wasakh fara badan iyo siibasho inaad kala kulantid xagee inay wadada wasakh taalo biro iyo qalab iyo waxay wadada ku yaacsan yihiin wasakh iyo waxay wadada inay waxyaalin waxyaabo wasakh oo ku xanimaya ama aad ku siiban kartid ama aad shil ku geli kartid xagee ayaad kaga xisaabtamaysaa saddexdan meelood meesha ayaad ka biqaysaa yani meeshaas aad ka biqaysid inaad ku siibatid waa inaad tartiib u socotaa baa lagu leeyahay dabcan inaan tartiib u socdo waa inaan ogaado horta meesha khatarteeda marka hore marka saddexdan meelood tuma ayaad iska ilaalinaysaa saasaa laga wadaa eine Mündung von Feldwegen so eine Mündung Feldwegen waxa weeyaan wadooyinka yaryar ee magaalada ka baxay inta badan beeraha iyo tuulooyinka iyo meelahaas aada ee aan aadka loo isticmaalin waliba tuulooyinka inta badan wadooyin fiican baa aada laakiin tuulooyin waxaa jiraan wadooyin fiican aadin waa meelaha Soomaalidu inta badan u yaqaaniin raf ayay noqon karaanin sidoo kale waxay noqon karaanin meel aan raf ahayn oo dhisan laakiin aan aad loo isticmaalin sadarteed waxa dhici karta in wadadu meel ka jabto waxa dhici karta in wax ay iska yaaliin wuxuun maadaama aysan wadada aad loo isticmaalin taas marka xawaarahayga waan soo dhimaya xawaare orod kuma soconaya maadaama wadadu wada caynkaas tahay saas uu ina leeyahay an in städtischen Kreuzungen
iskoosyada magaalooyinka dhexdooda ah taas miyaa an Baustellen dhismayaasha miyaa saddexdan tuma weeye buu leeyahay ma wadooyinka yaryar baa meesha aad iska ilaalinaysid oo aad tartiib u soconaysid aan khatarta iyo siibashada kaga xisaabtamaysid mise waa iskoosyada magaalooyinka u dhaxaya mise waa dhismayaasha saddexdan waxaan leenahay dee iskoosyada magaalooyinka u dhaxaya wasakh ma noqon karaan taas waan ka boodaynaa tan waa suurtagal maadaama wadooyin yaryar oo aan aad loo isticmaalin ay yihiin in ama waxyaabo yeelin oo kala kulmo ama aan ku siibto ama wadadu ay jabto oo aan shil iyo wax ka galo halkaas tartiib aan soconaya sidoo kale to aan Baustellen iyadana waa sax sababtoo ah dhismaha waxa dhici karta in ciid iyo wuxuun ka soo firdhaanin oo wadada soo gaaraan dabadeedna aan ku siibto sidoo kale waxa dhici karta qalabka dhismaha ama wuxuun oo ciid iyo waxaas inay dabayshu soo qaadato wadada keento dabadeedna aan ku dhaco ku siibto haddaan marka halka xawaare ku marayo shilalka ugu badan baa ka dhaca waa inaan soo dhimo markii gaariga sababtoo haddaan halkaas xawaare ku galo meel dhismi ka dhow yahay wadada ama ciid ama qalab ku daadsan yahay baan gelayaa dabadeedna shil baa dhacaya sidaa darteed halkan waan kaga xisaabtamaya mar walba aan soo gaaro Baustelle mar walba aan wadooyinka caynkaas ku soconayo xawaaraha gaarigayga waan dhimaya halkana waa saxnay wann ist das überholen verboten goorma ayay mamnuuc tahay inaad gaari kale baastid ama inaad gaari kale dhaaftid baastid ama dhaafid goorma ayay xilligaasi mamnuuc tahay buu kugu yiri marar waxa jira adan gaariga ka horeeya hadduu xitaa maanta dhan tartiib u soconayo adan dhaafi karin marka mararkaas goorma kamid ah wenn sie nicht die gesamt Überholstrecke überblicken haddii aysan ii wada muuqanin ama haddii aysan ku wada muuqanin wadada aan rabo gaariga inaan ku baaso wadada oo dhan ima wada muuqato gorida ku jira wenn die Verkehrslage unklar ist haddii aysan xaaladda wadada ii cadayn so xaaladda yani socodka ima cadda haddii aysan xaaladda socodka aan ku soconay ima cadda xaaladda aan ku soconay ima cadda waxa dhici karta in gudcur meesha jiro nebel in meesha jirto baabuurta iga horeysanana wax badan ka arki karin xaaladahooda meeshaas oo kale aan maraya Vinci oo ma fahmayo baabuurta iga horeysa ilaa hadda xaaladahooda si sax ma fahmayo Vinci nicht wesentlich schneller fahren können als der sie überholen haddii aanan ku socon karinin xawaare ka sarreeya gaariga aan doonayo inaan baaso sie überholen gaariga aan doonayo inaan baaso xawaare ka sarreeya haddii aanan ku socon karinin saddexda xaaladood tuma ayaad mamnuuc tahay buu kugu yiri inaad gaariga baastid waxaan leenahay saddexdaba waa sax sababtoo ah haddii aysan wadadu ii wada muuqan horta gaari ma baasi karo kow wadadiiba ima muuqato waxa horteeda kusoo jira ma ogiye sidee gaarigan u baasaa labo tan waxay u muuqataa sax sababtoo ah haddaysan ii caddayn xaaladda aan ku socdo iyadana gaariga ma baasi karo tan iyadana sax ayay u muuqataa sababtoo ah haddiiba gaariga aan rabo inaan baaso aanan anigu ka dheerayn karin sidee u baasi karaa ma baasi karo wey iyadana waxaan rajaynayaa inaan saxnay wuxuu ina yidhi waad saxday waan ka gudbaynaa Sie nähern sich eine Schule. waxaad u soo dhawaatay iskool Kinder verlassen das Schulgelände. Carruurta waxay ka soo baxayaan oo ka soo tegayaan iskoolka. Womit müssen sie rechnen? maxaa kaga xisaabtamaysaa? Iskool baa ku soo dhawaatay xilliga carruurta ka soo bixisay weeyo iskoolka carruurta baa ka soo baxaya maxaad kaga xisaabtamaysaa buu yiri halka kan. Das Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen. inay carruurta wadada ku soo rogmadaan. Sich immer verkehrsgericht verhalten in aan sharciga gaari soo sharciga wadada inaan ku sii socdo wadooyinku shuruuc bay leeyihiin Soomaaliya inaan iskoolkii waxa uu joojinaa sharciga raaco wadada sharciga ay siinayso inta aan ku mari karo qaabka wadada shuruucda ay wadadu siinayso inaan raaco mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren in ay carruurtu wadada si aan taxadir lahayn baaskiilka ugu kaxaysan karaan in wadada baabuurka ay baaskiil iskala ordi karaan saddexda xaaladood tuman ku xisaabtamaya markaan iskool carruur ka soo baxayso u soo dhawaado waxaan leenahay tan waa suurtagal sababtoo carruurta markii iskoolka laga soo daayo inay ku soo rogmadaanin wadada iyagoo yaacaya taas waa suurtagal tan suurtagal ma noqonayso sababtoo wuxuu ku leeyahay sharciga gaariga soo sharciga wadada ayaan ku soconaya sharciga wadadana kuma socon karaya haddii meesha carruur timaado mar haddii carruur timaado sharciga wadadu waa lumaya carruurtu iyaga sharciga iska leh sababtoo ah iyaga sharcigu ma qabanaya anigu qabanaya haddii wadada meel khaldan ka jarayaan aniga xaq waxa la igu leeyahay iska taago inaan iraahdo meel khaldan bay marayeen dusha ka maro layma ogola marka haddii meesha carruur timi sharciga wadadan ku soconaya maya haddii wadada konton uu ahaa xawaaraheeda 30 20 ayaan ka dhiganaya gaariga waan soo dhimay aqal gal ma haynan xawaarahaasi ku socdo so tan wuxuu yiri carruurta inay wadada baaskilada ku kaxaystaan baabuurka soo wadada baabuurka inay baaskilada ku dhex riyadaaniin taasna waa suurtagal iyadana oo ku xisaabtamaya sababtoo meesha waa carruur baaskil bay iskala soo ordayaan ayaan xarjinayna labadaas sax tahay iyadana wuxuu yiri waad saxday
Sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug mit hochbeladenem Anhänger. waxaad daba socotaa gaari kuwa beeraha ah landwirtschaftlichen Fahrzeug waa baabuurta beeraha wuxuu sitaa buu kugu yiri ama wuxuu jiidanayaa container aad u culus foomid muusan si rechnen maxaa kaga xisaabtamaysaa gaarigaas khatar noocee ayaad kaga xisaabtamaysaa gaariga aad daba socotida kuwa beeraha ah oo containerka jiidanaya inuu kugu dhaco maxaad ka baqaysaa maxaad kaga xisaabtamaysaa saddexdan habdhaqan kumaad ku xisaabtamaysaa ama saddexdan xaaladood kumaad ku xisaabtamaysaa der Zug hat wegen der Beladung einen besonders großen Bremseffekt in uu gaariga iga horeeya culayska saaran dartiis uu taraaraxo maadaama markuu istaagayo inuu taraaraxo die Blinker können verdeckt sein so das schlecht zu erkennen ist wenn der Zug abbiegen will in gaariga maadaama anhänga uu sii wato maadaama container uu xagga dambe ku sito aan gaarigu si fiican igu muuqanaynin in ay iga qarsoonto ishaaradiisa markuu ishaarada gaarigu rito inaan ishaaradiisa arki waayo oo hadduu bidixu leexanayo hadduu midigu leexanayo haddaan dhinaca wadada dhinaca rabo inaan u leexdo u leexanay inaanan fahmi karin sidaa darteed abishtan dhamaasiinaya kuma dhawaanaya vor allem beim Bremsen oder beim Abbiegen können Teile der Ladung herunterfallen mar kasta oo uu doonayo inuu leexdo ama uu istaago rarkiisa waxba ka dhici kara rarkan uu sito containerku ku sito qoryo iyo inuu wax sitaa dhici karta waxba ka dhici kara saa darteed hoosta kima geliyo waxa igu dhici karta inay wax ka dhacaan aniga igu dhacaan khatar geliyaan aydan waxaan leenahay tan suurtagal maaha sababtoo hadii uu taraaraxo horta gaari culus inuu taraaraxo suurtagal ba maaha oo aan heenga jiidanaya isagaba gadaal laga jiidaya sababtoo uu taraaraxayo wax aqliga gelaysa maaha hadduu taraaraxan anigu waba ka dambeeya dehinta baan socdaa maxaa iga galay taas waxaan leenahay marka anigu habdhaqankaas waxba igama gelinin labadan xaaladood ayaan ku xisaabtamaya tan waa suurtagal in gaariga containerku iga qariyo oo aanan ishaaradiisa arki karin saa darteed leexashada arrimahaas markay yimaadaan aad baan iska ilaalinaya sidoo kaleeto tanna waa suurtagal oo hoosta kama gelaya haddaan ku dhawaado waxaa dhici karta markuu leexanayo inuu gaarigu containerkiisu dhinac u leeco dabadeedna aniga igu soo dhacaan in waxa containerka saaran gaarigana iga jijibiyaan anay dhaawacaanin ama shilan halkaa ku galo saa darteed abishtan dhamaasiinaya mar hadduu gaariga kuwa beeraa yahay container jiidanayo hoosta kama gelayo waan ka fogaanaya inta aan ka fogaanaya baabuurta kale in ka badan baan ka fogaanaya waan fiirinaynaa marka wuxuu yiri waa saxday aydan tan wuxuu yiri waa saxday waa muhiim inaynu sharci ahaan u baranno sababtoo khatar bad gelin kartaa hadii kale naftaada haddaadan sidaas u soo baran so halkan ayaynu nimi for dem Motorrad mochte eine Privatkraftwagen so waxaa loo soo gaabiyey Privatkraftwagen waa personal car gawaarida yaryar ayaa la yiraahdaa auf die Fahrbahn zurücksetzen gaari baabuurta sida gaarka loo leeyahay af Soomaali saas ay ungefähr noqonaysaa baabuur sida gaarka loo kaxaysto baabuurta yaryar inta badan wadana family so personal car ka gawaarida mid kamid ah ayaa wuxuu rabaa yiri wadada inuu ku soo baxo foomid muusan si rechnen gaarigu baarkin buu ka soo baxaya wadada ku soo baxaya wadada dib ugu soo baxaya maxaad kaga xisaabtamaysaa gaarigaas waana baabuurtan inuu hortaala gaariga cas ayaa hadda raba wadada inuu ku soo baxo mootadana wayna hor socotaa xaaladan maxaad ku xisaabtamaysaa buu yiri mootada horteeda baa gaarigaas rabaa inuu soo baxo maxaad samaynaysaa marka gaariga ma baasaysaa ma sugaysaa maxaad samaynaysaa halkan saddexdan habdhaqan kumaad ku xisaabtamaysaa ama kumaad yeelaysaa wuxuu yiri das Motorrad plötzlich abbremsen wird so abbremset wird in mootada ay si lama filaana isu taagto in mootada ay si lama filaana isu taagto waan ku xisaabtamayaa das mein Bremsweg länger als normal wird in habkii aan isu taagi lahaa ama meeshii aan ku joogsan lahaa inay ka dheeraado gaarigu uu ila taraaraxo oo meel hore uu isku taago taana waan ku xisaabtamayaa maadaama wadada ay sigtahay oo baraf yaallo das der Privatkraftwagen weiter zurücksetzen inuu gaarigaas dib u soo baxo waxa dhici karta mootadan intay socoto iyadoo waa mooto gaariga way ka fududahay inay u goyso gaarigaas dhinaca ka dhaafto dabadeetana aniga iyo gaarigaas aan isku soo baxno marka hadaan mootada focus ka saaro iraahdo aniga gaarigaas waxba igama gelin mootadan iga sokaysa waxa dhici karta mootadu inay dhaafto dabadeedna markii mootada dhaafto gaarigu dib u soo baxo isagoo doonaya inuu ka gaarsiiyo dabadeedna aan isku dhacno marka mootada waa inaan iska ilaaliyo istaagitaankayga waa inaan iska ilaaliyo gaarigana waa inaan iska ilaaliyo aydan waxaan leenahay saddexdaba waa sax kow mootada inay si lama filaan isu taagto maadaama meeshuna ay iska tahay gaarina ka soo horbaxayo taas waan ka baqayaa mootada waan ka fogaanaya sidoo kale waxaan iska ilaalinayaa in meeshii soo habku talagalkaygiisa oo qaabkan isu taagi lahaa in gaarigu ila taraaraxo oo meeshii aan isku taagi lahaa meel ka fog aan ku qabto dabadeedna haddii meeshaas cidi joogto waan dilayaa soo maaha saa darteed mar horeba waan istaagayaa istaagitaankayga meel soo ka fog mootada ayaan ku bilaabayaa inaan gaariga istaajiyo
صادرت iyadana in gaarigu ila taraarixi karo waan ku xisaabtamaya ila maxaa ku xisaabtamaysaa la yiri sidoo kale to waxaan ku xisaabtamayaa gaarigaas inuu dib u soo baxo gaarigaas inuu dib u soo baxo wadada soo galo taasna waan ku xisaabtamaya waan eegaynaa wuxuu yiri waad saxday saddexda su'aaloodba waad saxday so video ayuu inoo diray waan iska dhaafaynaa halkan ayaa nimi wuxuu yiri faqum musen si jetzt bremsen maxaad isu taagaysaa hadda sababta hadda isu taagaysaa meeshan waa khasab laasim inay istaagtid laakiin sababta isu taagaysaa noo sheeg saddexdan arrimood tuma isu taagaysaa fegen des roten fastwages waxa lagu leeyahay marka lagu leeyahay sababta isu taagaysaa noo sheeg waxa la rabaa in lagu baro sababta ay tahay inay isu taagtid ee maaha in adiga maskaxdaada lagu weerarinayo wax lagu weydiinayo maya adigu baro weeye sababta aad isu taagaysid marka saddexdan su'aalood baan ka baranaynaa tan eenu isu taagayno fegen des roten fastwages gaariga cas oo daba socda sababtiisa waa inaan istaago fegen des radfahrers qofkaas baaskiilka wata ama ninkaas baaskiilka wata sababtiisa waa inaan isu taago fegen der haltestelle baskaas halka maraya yani maxadadaas baska oo qof dadku ay taagan yihiin waa inaan maxadada iska taago maxadada waa inaan iska taago saddexdaas sababood tuma ayaad isu taagaysaa maskaxda wax ka shaqeysay saddexda sababood tuma ayaad isleedahay ayay khasabtay inaan isu taagno aniga waxaan isleeyahay gaariga iga dambeeyo horta suurtagal maaha inaan isu taago sidoo kale to radfahrers oo kan baaskiilka wato isagu waa khasab inaan isu taago sababta wadadu soo geliya haddaan ku sii socdo marka shil baa dhacaya maxadada baabuurka soo maxadada baska inaan iska taago aqli gal maaha maxadada inaan iska taago aqli gal maaha sababta maxadada gaari hadda ma joogo bas ma joogo baska ay dhinac marayana yuusan ku khaldin isagu maxadadan shaqo kuma laha dhinacaas maraya halkan adiga un baa ku socda isagu dhinacaas maraya liiniyahaas maraya marka shaqo iguma laha meeshan maxadadan isagu shaqo kuma leh sadarteed waxa kaliya aan iska taagi karo waa qofka baaskiilka wata aan fiirino wuxuu yiri su'aasha waad saxday sababtoo qofka kaliya ayaan iga xaqlay inaan isu taago gaariga iga dambeeya gaariga dhinac maraya midna isuma taagay gaariga baskaas uu dhinac maraya so ihnen kommt eine Pferdkutsche entgegen waxa ka hor yimi fardahan wax jiidaya fardaha inta badan baabuurta jiida waxa la yiraahdaa Pferdkutsche oo inta badan dalxiisayaasha ay raacaan marka waxa ka hor yimi gaari uu faras jiidayo wie sollen sie sich verhalten sidee ayaad ula dhaqmaysaa gaarigaas markuu ka hor yimaado sidee ayaad ula dhaqmaysaa ich sollte Lärm vermeiden waxaan ka fogaanayaa qaylada in gaarigaas wax qayla ah uu la kulmo faraskaasi inaan hoon ku rido ama ka sasiyo ama ku qayliyo taas waan ka fogaanayaa si uusan u didin ama u sasin oo uusan ula cararin dadka gaariga wado uusan shil u dhicinin Standlicht einschalten waxaan ku shidayaa leerka Standlicht af Soomaali kuma garanayo laakiin waa leerka la shito marka gaariga cilad ay kaaga dhacdo ama maahan meel aad wax yar istaagaysid oo doonaysid inaad gaariga farsamo guriga doonaysid wax kala soo degto guriga hortiisa gaariga ku yaala waxa ka biqaysaa meesha meel caadi ahaan gaariga loogu talagalay maaha waxa shidanaysaa marka afar leer baa jiro la shito macna ahaan af Soomaali kuma garanayo marka ma leerarkaas aad ku shidanaysaa buu ku leeyahay moglichste fight rechts fahren waxaan ka marayaa dhinaca midigta ah inta suurtagal ah dhinaca midigta ayaan ka dhaafayaa saddexda xaaladood tumaad kula dhaqmaysaa markuu faras ka hor yimaado faraskaas gaariga jiiday markuu hor yimaado saddexda xaaladood tuma ayaad kula dhaqmaysaa sababtaas inuu weydiiyay waxaan leenahay horta laan fahmayna waa sax sababtoo ah haddaan waxaan waa noole haddaan hoon ku rido ama ku qayliyo waxa dhici karta inuu dido dabadeedna shil meesha ka dhaco gawaari kale uu galo sadarteed horta dhawaaqa iyo qaylo iyo waxaas waan iska ilaalinaya markii fardu iga hor yimaadaan marka labaad halkan de leerka sababaan ugu shido ma garanaya sababtoo gaarigaas sababaan leerka u isticmaalo ma garanaya marka taas khalad bay u muuqataa halkana waa suurtagal waxaan leenahay inta ugu suurtagalsan dhinaca midigta ayaan ka dhaafaya inta ugu suurtagalsan dhinaca midigta baan ka dhaafaya waana soconaya taasna waxaan rajeynayaa inay sax tahay aan eegno marka wuxuu ina yiri waa sax labadaas sax markii faras laga hor yimaado gaari jiidaya labada xaalood baan kula dhaqmaynaa dhawaaqana waan iska ilaalinaynaa dhinaca midigtaana inta ugu suurtagalsan baan ka maraynaa video kale inoo diraya so xaaladan ayaynu ku timi wuxuu yiri في verhalten sich richtig hab dhaqankee ugu saxsan oo aad kula dhaqmaysaa yani sidee ugu saxsan halkan aad kula dhaqmaysaa saddexdan xaaladood tuma ku ugu saxsan oo aad ama tuma ku saxsan oo aad kula dhaqmaysaa qofka baaskiilka soo wata ayuu ka hadlaya qofkaas ayna ka hor yimi wadaduna waa aynban waa wadada yar qofkaasina wayna ka hor yimi sidee isku dhaafeynaa marka qofkaas wadooyinka aynbankaas sidee kula dhaqmaysaa markii baaskiilu ka hor yimaado xaaladaas la rabaa in layna baro mit mäßiger Geschwindigkeit Weit fahren, weil der Seitenabstand zum Radfahren sehr gering ist. waxaan ku soconayaa xawaare yar
maxaa yeelay baaskiilka cidhiidh bay ku noqonaysaa meesha dhinaca maraya way ku yartahay saa darteed waxaan ku soconayaa xawaare yar baaskiilkana waan dhaafaya warten weil der Seitenabstand zum Radfahrer sonst zu gering ist waan istaagaya waan sugayaa maxaa yeelay baaskiilka dhinaciisu waa cidhiidh ima dhaafi karayo idinka laydinka raba inaa fahamtaanin maskaxda ka shaqaysiya tuma sax noqon karta gleichmäßig weit fahren weil der Seitenabstand zum Radfahrer ausreichend ist waan soconaya waan dhaafaya xawaarahayga ayaan ku soconaya maxaa yeelay baaskiilka waaba ku filan yahay dhinaca iga dhaafi karaa aydan aniga caqligayga baaskiilkaas meesha waa ayn baan isma dhaafi karno haddiiba ay markaan sii socdo waxa suurtagal ah inaan isku dhacno sidaa darteed waxaan sugayaa baaskiilkaasi inuu isoo dhaafo baaskiilkaasi inuu isoo dhaafo ayaan sugayaa kabacdina markuu i dhaafo ilaa shil baa la rabaa inaan ka fogaado ayaan soconayaa waxaa dhici karta meelahan kale imtixaanka inaad ka hortimaadi baaskiil iska jir aan fiirino insha allah waxaan rajaynayaa inaan saxay suurtagal inaan khalday laakiin inaan saxay ayaan rajaynayaa soo behirda shibraaka ma fududa alxamdulilah waynu saxnay iyadana baaskiilka waynu iska taageynaa waxaan nimi qaybtan wuxuu yiri warum müssen Sie in dieser Situation mit dem Abwägen warten sabab ayaad isu taagaysaa soo xaaladee soo warum müssen Sie in dieser so xaaladatan sabab ayaad isu taagaysaa xaaladan sabab ayaad isu taagaysaa oo u sugaysaa inaad leexatid waxa rabtaa inaad leexatid marka sababtee ayaad isu taagaysaa oo aad u sugaysaa leexashadaada sababtee ayaad u sugaysaa inaad leexatid inaad xaaladana ku timi inaad leexatid baa rabtaa markastoo aad leexanaysa khasab maaha inaad istaagtid laakiin xaaladan waxaa khasaba leexashada inaad sugtid sababta ay khasab u tahay baan markaa rabnaa marka saddexdan su'aalood ayuu rabaa inuu ina weydiiyo halkan aan maraya anigu waxaan rabaa inaan leexdo inaan leexanayo waxaa caddaynaysaa calaamaddaas calaamadda gaarigayga anu gaarigan aan wataa calaamadda xagga aan u ritay layrkaasi wuxuu itusayaa gaarigayga inaan anigu rabo inaan bidix u leexdo elkafaygaasina waa iga horyimi halkaa moota soo socota halkaa qof dumara maraya xaaladahaas ayaa leeleeyahay teebaa kugu khasbaysa inaad sugtid leexashada fegen der fuskengeri waxaan u sugayaa gabadha halkaa lugaynaysa darteed ayaan u sugayaa leexashada fegen des motorradis so fegen des motorrad mootada ayaan sugayaa moto waad halkaa soo socota alkafayga gadaashiisa so motoras so mootada lafta so mootada sababteeda ayaan u sugayaa inaan istaago fegen des elkafayga ayaan hadda igu khasbaya inaan istaago saddexda xaaladood tuma ku khasbaysa haddii uu gabadhan ay khasbaysa de gabadhan sidee bay ii khasbaysa halkaas bay iska maraysaa maxaa naga dhaxaya haddii iyadu wadada ku soo orado soo gasho de waa qof waalan iyada dhimanaysa aniga laakiin hadda waxaan ka xisaabtami karo maaha mootada ha waxaan leenahay waa sax sababtoo mootadu waa inayna soo dhaafto iyada iga xaqle mootada halkaas soo socota iyada iga xaqle elkafayga ha elkafaygu wuu ku barbar marayaa isee kaaga xaqleeya waa sax way barbar marayaa waana isdhaafi karnaa laakiin elkafaygu wuxuu iga qarinayaa waxaa gadaashiisa ahaaday waxaa dhici karta in halkaa gaari ku soo jiro oo haddaan dhinaca ka dhaafo oo israahdo dabadiisa ka soo bax aanu gaari uu isagu iga qarinayo iga xaqle aanu madaxa isku dhifanno sidaa darteed waddada aan ku leexan lahaa eriyadii isagaba iga qarinayeen waa inuu isoo dhaafo si aan u ogaado horta halkaa waxaa ku soo jira markuu isagu i dhaafana mootada ayaan sugayaa mootadana waa inay dhaafto markaas iyadaa iga xaqle markii intaasu i dhaafaan oo aan gaari kaloo iga xaqle soo bixinin markaas ayaan leexanaya saas ayaan rajaynaya inay sax tahay shaamad wuxuu yidhi waa sax labadaasina waa sax filkhas verhalten ist richtig habdhaqankee ayaa saxa saddexdan habdhaqan kuma saxa ama saddexdan habdhaqan kuma saxa baaskiilkaas bay horgalay halkaas baaskiil baa sii socda halka moota socota waxa markii ay xanimayeen mootadas waa iga fogtay waa baaskiilkan marka saddexdan xaaladood tuma saxa oo aan baaskiilka ku dhaafi karaa saddexdan habdhaqan kuma kula dhaqma baaskiilka nach linkis ausscheren inaan dhinaca bidixda u jaro wadada tan soo baaskiil ma qabsan baaskiilkan ba ka leexan oo dhinaca bidixda baan u jaraya beschleunigen inaan gaariga dedejiyo xawaaraha dheeraysiiyo si aan baaskiilka degdeg ugu dhaafo fesogayn in aan taxadir muujiyo saddexdan xaaladood tuma ayaan ku dhaqmi karaa yacni tuma ku dhaqmaysa baa lagu weydiinaya tuma ku dhaqmaysa waa inaad barataa saddexdan xaaladood tana ku dhaqmaysa saasaa lagu weydiinaya haddaan idhaahdo dee bidixdaan u jarayaa suurtagal maaha sababtoo bidixda gaarigaas ama igu dhici karo anigu xaq hadda uma lihina bidixda u leexdo awoodna uma lihi gaari baa halkaas soo socda gaarigaasa igu dhacaya marka suurtagal ma inaan bidixda maro haddaan idhaahdo beschleunigen waan dedejinayaa xawaarahana de baaskiilku waaba iga horeeya meeluu iga leexdana male waa laasim marka gaari la bacsanayo ilaa control male baaskiilka waan sii jeedaya marka waan ku talagalay shilka xaaladda idaha habboon waxay noqon kartaa fesoga inaan taxadir muujiyo baaskiilka iska taxadir ku dhaafo taas ayaa iigu habboon
أيضا وحين يريدنا واصحري بس كل كتحضر بين كل دافعنا بدحنا وما شرينا قارجنا مدة ديتشينا هدينا حالة لكلنا Wodurch kann auch mit Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet werden. So, wuxuu yiri maxaa sababi kara ama maxaa keeni kara in aad baabuurta ka hor imanaysa indhadrander ku ridid ina indhadrander indhaha ka cawartid baabuurta ka hor imanaysa ina indhadrander so blending ama blended waxa weeyaan waa indhadrander ama indha ka cawarid marka ina baabuurta indhaha ka cawartid ama indhaha darandarisid maxaa keeni kara sababta keeni karta noo sheeg saddexdan ka xulo waa inaan garanaynaa marka sababta markaan saddexdan ka xulano macnaheedu waa inaanu garanaynaa weey durch falsch eingesetzte Glühlampen in aan laambad khaldan inaan gaariga ku isticmaalo geliyo laambad khaldan inaan gaariga geliyo oo groupkii baa iga gubtay group khaldan ayaan gaariga ku xidhay durch falsche Beladung inaan gaariga rar khaldan saaro rar culus oo aan kiisi ahayn oo xadadkiisa ka badan inaan saaro durch so hoch eingestellte Scheinwerfer in aan aniguba aan dheerayo leyrka so leyrkan la yiraahdo Abblendlicht af Soomaali kuma garanaya laakiin waa leyrka la isticmaalo markii gudcur iyo dhido iyo roob iyo waxaas jiraanin xaalada gaar ah la isticmaalo marka waa leyr wuxuu ifiyaa ilaa 70 mitir ilaa 70 mitir buu ifiyaa inta gawaarida ka sokaysa marka indhuhu ka ridaya indhadrander buu ku ridaya shil baa dhici kara qofkaas waxa markay indhaha leyrka ka qabatay gaariga wato so gaariga ka horeeyay marka waxa dhan indhi baad ka riday marka so aydan saddexdan xaaladood tuma keeni karta buu ku yiri inaad baabuurta indhadrander ku ridid tan waxaan leenahay horta laambad khaldan hadaan isticmaalo waa suurtagal sababtoo laambad khaldan hadaan gaariga ku xidho oo aan xadadkeeda ahayn tii loogu talagalay waxa dhici karta inuu leyrku ka dheeraado jooggiisa dabadeedna uu baabuurtaas indhadrander ku rido tanna waxaan leenahay waa sax sababtoo hadaan rar khaldan saaro rarka khaldan for example qaybta dambe gaariga hadaan rar khaldan saartid waxa suurtagal ah inuu leyrka gaariga uu leyrka dambe inuu u baxo xawaare ka sareeya kii aad ugu tala gashay inuu leyrkaas uu furmo leyrka dheer inuu furmo ayaa suurtagal ah haddii aad xagga dambe rar culus saartid iska jir marka taasna waxaan rajaynayaa inay sax tahay so inaan rar culus xagga dambe ka saarno tan iyadoo waaba iska muuqata haddaan leyrka dheer ay anigu leyrka isticmaalo leyrka dheer inaan gawaarida indhaha ka ridayo way caddahay aydan saddexdaba waxaan dhihi karnaa waa sax wuxuu ina yiri saddexdaba waa sax saas ayaynu ku baranay iyagana so voran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen. Xagee ayaad ka ogaanaysaa notrufsäulaha meesha uu ku yaalo xagee ka ogaanaysaa notrufsäule waxa la yiraahdaa waa qalab lagu soo xiriiro markii autobaanka shil kugu qabsado highwayga wadooyinka waaweyn ee gobolada iyo wadamada sii gudba markii shil kugu qabsado qalab meel kasta telefoonku kuma dhacayo marxalada waxa jira telefoonku uusan ku shaqeynayn marxaladahaasi waxa jira autobaanka qalab loogu talagalay ku rakiban meel kasta soo 1 kilomitir buu isu jirjiraa baan Virginia saas wax badan saas uma jirjiro 1 kilomitir kasta mid baa ku rakiban qalabkaasi marka waxa la yiraahdaa notrufsäule hadii shil dhaco ama qof ka xanuunsado ama dhibaato kugu dhacdo adoo autobaanka saaran ma aha inaad telefoon iyo waxa ku ordid hadii aadan telefoon haysanin waa inaad notrufsäule raadisid si degdeg ah ula soo xiriidid hay'adaha caafimaadka degdega iyo booliska si aan marka u soo xiriiro waxa ka horeysa inaan marka hore garanayo markaan autobaanka fuulayo inaan garanayo notrufsäulahani meesha uu ku yaalo ama sida aan ku heli karo saddexdan marka tuma ku garanaynaa buu yiri saddexdan waa inaad ka xuladaa mid aad ku garanaysid meesha aad ka helaysid and then Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen calaamadaha dhulka lagu calaamadiyay ayaan ku garanayaa Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken tambeelayaasha hagaya baabuurta meeshaan u socday magaalooyinka intii jireen waxa ii sheegaya tambeelayaashaas ayaan ku garanayaa schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten so falaaraha madmadow oo wadada dhinaceeda ku yaala ayaan ku garanayaa saddexda xaaladood tuma ku garanaysaa tan waxaan leenahay suurtagal ma aha inaan calaamadaha dhulka lagu calaamadiyo aan ku helo notrufsäulaha dhulka kuma qorna calaamadiisa laguma garto tanna waxaan leenahay suurtagal ma aha oo de tambeelayaashan iima sheegayaan tambeelayaashan waxay ugu hagayaan meeshaan u socday intii jirtay waxaas notrufsäule iima sheegayaan ama tan waxay ii sheegaysaa notrufsäulaha tan ayaa ii sheegaysa calaamadan madow ee falaadha madow wadada dhinaceeda ku taala taas baa notrufsäulaha inta uu jiro iyo meesha iga xiga iyada ii sheegaysa taasaan marka eegeegaya iyadan raadinaya iyadan ka raacaya so tanna waxaan rajaynaynaa sax tahay iyadana wuxuu yiri waa sax aydan notrufsäule markaan u baahno kaliya waxaanu ku raadinaynaa tan kuwa kale kuma raadinayno
So, sie kommen an eine Kreuzung, an der sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken, wie verhalten sie sich. waxaad ku timi iskoyskaas oo gaariga kaa horeeya adan markaba arki karinin xaaladiisa gaariga kaa horeeya xaaladiisa markaba ma arkaysid iskoyska marka ay soo taagtay gaariga iskoyska ku jira hadda markaba xaaladiisa ma aadan fahmin gaarigana dhinac ma u baxaya marka saas kugu dhacdo maxaad samaynaysaa gaariga iskoyska kaaga horeeya ku jira gaariga wali ma aadan fahmin xaaladiisa meesha u baxayo iyo habdhaqankiisa ma aadan fahmin sidee baad yeelaysaa saddexdan xaaladood tuma gaariga kula dhaqmaysaa nach der Regel rechts von links fahren sharcigan raacaya bidix midig baan u baxaya aniga waxba igama gelin alles geradeaus fahren immer durchfahren marka aan doonayo inaan toos u baxo waan ku soconaya mar haddaan anigu toos doonayo aan toos uga baxayo croisanka ma eegayo gaari inuu ku jiro in kale anigu waa iska soconaya warten beobachten und sich gegebenenfalls mit anderen verständigen waan istaagayaa waan fiirinayaa baabuurta kale ayaan markaa fahamsiinayaa wargelinayaa dabadeedna waan baxayaa yani dhinacaan u socda waan baabuurta kale ku wargelinayaa dabadeedna waan baxayaa leyrka ayaan ridanayaa marka hore waan istaagayaa waan fiirinayaa leyrkaan ridanayaa dabadeedna waan gelayaa saasuu ka wada waxaan leenahay labadani sax maaha caqligalna maaha inaad meel iyadoo iskoyska gaari ku jiro aadan gaariga dhaqankiisa weli fahminin inaad iska geshid aydan tana ugu saxsan tan inaad sugtid eegtid leyrka ridatid dabadeedna saa ku baxdid tanaa sax noqon karta wuxuu ina ku yiri waa saxday alxamdulilah so waxaan ku nimi xaaladan wuxuu yiri fi halten sich hier richtig sidee ayaad halkan ula macaamilaysaa ama habdhaqankee ugu saxsan oo aad halkan kula macaamilaysaa habdhaqankee ugu saxsan oo aad halkan kula macaamilaysaa waxaan leenahay ich biege vor dem gelben Fahrzeug soo saddexdan tuma saxan buu ku leeyahay ab waxaan ka leexanayaa gaariga halkaas soo socday gelbiga hortiisa ayaan ka leexanayaa وحالة كلها رقم كرتيد إخلاص das gelbe Fahrzeug durchfahren gaarigaas gelbiga ayaan deenaya inuu idhaafo isaga uu ogolaanaya inuu idhaafo ich biege vor dem roten Personalkraftwagen ab gaariga cas hortiisa ayaan ka leexanaya gaariga cas hortiisa ayaan ka leexanaya saddexdan xaaladood meelaha waxa dhici karta inaad xitaa adoo imtixaanka ku jira ku soo beegantid dabadeedna prooferka uu isku dayo inuu ku khalkhal geliyo ku yiraahdo soco maxay gaarigan way kula qabsan karaan shil ma gelisid sadarteed wuxuu doonayaa inuu shuruucda ogaado inaad gaariga bal siisid iyo inaad ka boogtid aniga caadi ahaan gaarigaas isaga xaq leh sababtu waxay tahay gaarigaas gelbiga isaga xaq leh gaariga cas horta waxba kaay iskama gelin oo sabaan uga hadlaaba ma jirto dhinacaan hadaan ka marayo hortiisa ma marayo gaariga gelbiga laakiin kama hormari karo sadarteed waa inaan marka hore gaariga gelbiga ogolaado inuu dhaafo dabadeedna waa inaan leexdo xaaladaas ayaa sax noqon karta waxaan leeyahay marka ikhlaas das gelbe Fahrzeug durchfahren gaarigaas ayaan deynayaa hay dhaafee gaarigaas ayaan deynayaa hay dhaafee taasna waynu saxnay ma sha Allah waxaan rabaa inaan halka ku joojiyo dhowr 10 su'aalood baan ka jawaabaan rajeenaya soo ilaa 20 baan rabay inaan ka jawaabo laakiin waqtiga dheeraanaya saacadii dheeraad bi gaaraysa marka ku yiri caajisaysan soo waxaan rabaa inaan halka ku joojiyo fadlan qofkii doonaya inuu ka qayb qaato koorsada barashada baabuurta ee macadka Baash Academy waxaanu diyaarinay koorso 30 maalmood gudahood aanu qofka ku barayno baabuurka mid keentiisa soo aqoon iyadoo qofka lagu fahamsiinayo sababta gaarigu xaq leeyahay sababtu xaq leeyahay waxa uu samayn karo waxaanu samayn karin maalin kasta waxaad qaadanaysaa 40 su'aalood Soomaali lagu sharxo haday ka go'aantay inaad wax baratid way fududahay in hal maalin ku soo xiftidid bil gudaheed inaad ku dhamaysid for example ardayda hadda bisha labaad bilaabaya waxaan rajaynaynaa bisha saddexaad horaanteeda inay geli karaan imtixaanka inta uusan imaanin sharciga bisha labaad soo bisha afraad labadeeda la rajaynayo inay ka hor ay soo maraan theory proofing-ga hadii la ogolaado oo iskoolada la furo farashilayaasha la furo soo qof kasta oo doonayo danaynaya fadlan waxaad nagala soo xiriirtaa page-keena Facebook-ga Baash Academy ama website-ka waxaad ka helaysaa halka WhatsApp-ka waxaad ka helaysaa telefoonka waxaad ka helaysaa Facebook dhexdiisa wax nooga soo qori kartid telefoonka Facebook ku qoran ama website-ka ku qoran isagana iyo email-ka labadaba waad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp ahaan oo isticmaali kartaa telefoon ahaan waad soo wici kartaa khayr badan ayaan idin rajeynayaa assalaamu calaykum